burburka ay ku keento qoysaskeena. insha Allah maanta waxaan qaadanaynaa shakiga oo ka mid ah qodobada burburiya qoysaskeena maanta. haddii ay noo gaartaan waxaan ku dari doonaa ixtiraam xumida. sidoo shakigu waa tuhun uu qofku tuhumo in wax khaldan yihiin. isbedelka nolosha iyo sideedaba sida hadba nolosha qofku magaaladu joogo isbedelka uu ku jiro ayayna ku xiranta iyo shaqadu hayo. shakigaas maanta guryo badan naga burburiyay isagoo si fudud loo daaweyn karo, iyadoo la tacaali karo, iyadoo xalba laga gaari karo, ayaa uu weynaaday oo reero badan naga burburiyay, qoysas badanna maanta ku kala maqan yihiin. shaki ka dhashay waxaan macno lahayn oo dhexdooda. sidaan bay idiin sheegay, dadku markii noloshu isbedel ku yimaado ama uu tago meel ka yar xadaarad sareysa, dhaqdhaqaaqa qofka iyo baahidiisa iyo dadku la xiriiraya kulli waa badanaya. mar alla markuu qofku dhaqdhaqaaqiisu batana, shakigaasu inta badan dad buu aad ugu sii weynaadaa. marka shakigu waa cudur, maaha masayrka. waxaan ka hadlay masayrka u tegi doonaa. shakigu waa wax qofka ku abuuran oo uu tuhumo in wax khaldan yihiin socda. waxaasu marka asagu ama saxa noqdaan ama laakiin asagu xaqiiqo uma hayo. dadka Soomaalida oo hadda degan maxaan ku yiraahdaa miyiga ama meelaha tuulooyinka aada shakigu ugu yiriya, sababtoo qofku waa hawshoon yahayba ama wuxuu mashquul ku yahayba camal. sidana shakigu wuxuu soo galaa meelaha shaqo oo leh. qofka hadduu shaqo haysto ama ha noqoto inuu akadeemiga wax baranayo ama ha noqoto inuu shaqo ku dhex jiro, chance buu ma hayo shaki uu shakiyo, sababtoo ah asaga maskaxdiisii mar walba waxay mashquul ku tahay waxbay ku raaxaysanaysaa. mar shaqo ku raaxaysanayso iyo mar waxbarasho ku raaxaysanayso. laakiin markay firaaqo hesho oo qofku fiirfiirin uu bilaabo gurigiisa dhexdiisa ama uu tallaabadii shaqadii socotaba uu isha la raacraaco oo sidii daqsigii wax nabara raadiyo, shakigiisa xoogaysta. wax aan meesha ku jirin baa isu sawira. nin shaydaan la yiraahdo de shaqadaaba aad uga shaqaysto, aad wax u buunbuuniya, wax u cayilayna meesha ku jira. marka shakiga maanta guryaheena burburinaya oo aan ogaanay inay qoysas badan ku baaba'een, aad iyo aad baan jeclaan lahay in loo fahmo noocyadiisa. waxaan kaloo ogaataan qof walba wuxuu shakiyaa inta aqoontiisa iyo garaadkiisu ay u shakiyaa. qofka hadduusan aqoonna lahayn waxna baran garaadkiisuna fiicnay shakina galo, shakigaas aad buu u dhib badan yahay inuu qofkaas ka baxo. jiruu ku noqdaa, buufis baa gala, dadku dhan buu isolate ka noqdaa, aakhirkana wuu waashaa. shakigaasana sababa. qofka hadduu laakiin garaad leeyahay ama wax akhriyay oo nin wax bartay yahay, waxaa laga yaabaa inuu qiimeeyo wuxuu ka shakiyay iyo waxa ka dhalan kara hadduu shakigaas ka hadlo si khaldan uga hadlo. shaki kastoo dhaca xal buu leeyahay, sababtoo ah shakigu waa waxaadan hubin. marka waxaadan hubin in aad la boodo oo caadifadaada ay qaado oo aad si khaldan uga jawaabto ama hadal khaldan tiraahdo iyo waxay keeni karto, waa aragnaa guryahanagii baabi'isay. marka waxaa la rabaa in aad loo fiirsado oo markii shaki aad dareentid aad mujaamalayni aad si sax qofka u weydiiso waxa ka shakiday waxay yihiin. haddii shaydaan wax kuu sawiranaad cudubilaysato, haddii wax muuqday yihiin oo shakigu wax jira oo boqolkiiba probability-giisu uu badan yahay yihiin, aad weydiiso waxaana arkay maxaa ka jira. marka shakigaan rabno maanta inaan sharxno oo maanta guryahanaga burburiyay, aniga 3 qaybood baan u qaybiyay. shakiga qofka naftiisa uu ka shakay khatar inay ku soo socoto oo xaaskiisa uga soo socoto oo ragga inta badan ku shakiyo. shakiga xagga maaliyadda ah oo ninku uu ka shakiyo xaaskiisa in maalkii uu gurigiisa siinayay ama iyada siinayay ay si khaldan u maamulayso. iyo shakiga gogol dhaafka ah. 3daas qaybood baan ka dhigay aniga shakiga maanta guryaheena burburinaya oo runtii aad iyo aad culays noogu haya. marka mid walba gaarkiisa insha Allah u galeynaa haddii aan rajaynayaa insha Allah taala casharada dambe haddii la yiraahdo annaga oo sii wadi doona
casharkeenna maanta halkaas ayaanu ku soo koobaynaa. waa qoys bilow idin leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.